ururkii dhalinyarada Soomaaliyeed ee SYL waxaa la aasaasay sanadku markuu ahaa 1943 waxay ahaayeen dhalinyaro da'dooda u dhaxayso 15 jir ilaa iyo 33 jir waxay u midoobeen sidii dalkan oo markaas ku jiray gacanta gumaystaha xorriyad loo gaarsiin lahaa waxaa jiray qodobo muhiim ah oo ay ku heshiiyeen dhalinyaradii SYL kuwaas oo gundhig u ahaa waxa ay qabanayaan waxaana qodobadaasi ka mid ahaa in laga wada shaqeeyo sidii Soomaaliya oo dhan ee u heli lahayd xorriyad in meel looga soo wada jeesto la dagaalanka gumaystaha in la isku keeno dhammaan dadka Soomaaliyeed ee gumaystaha oo kala qaybiyay in laga fogaado wax kasta oo keeni kara khilaaf iyo in dadka Soomaaliyeed ay kala fogaadaan iyo arrimo kale oo muhiim ah ururkii SYL wuxuu si degdeg ah ugu faafay gobollada dalka oo dhan oo xafiisyo ka furtay waxaana durbaba uu helay taageerada qaybo badan oo ka mid ah bulshada